wali ma isweydiisay sidii qof caadi ah loo gaarsiin karaa heer inuu asagu gacantiisa isku dilo sidii hooyo loogu qanci karaa in ay sun siiso carruurteeda sideese 918 qof hal maalin u dhiman karaan iyagoo aan wax dagaal ah ku jirin qiyaas kayn dhexdeeda meel aan wax internet ah ka jirin meel aan boolis joogin meel dadka lagu yiri halkan waa janno laakiin jannadii waxay isku bedeshay qabriga ugu weyn dunida maanta waxaan kuu sheegayaa sheeko dhab ah oo la yiraahdo JONESTOWN waa sheeko cabsi murugo iyo la yaab leh haddaba sheekadan oo faahfaahsan muuqaalkiina ayaad uga boga doontaa laakiin ugu horreyntii intaanan u gudagelin barnaamijka inagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran si aysan ku dhaafin barnaamijyada aan halkan ku soo baahin wax walba waxay ka bilowdeen in la oran jiray Jim Jones markii hore dadku waxay u arkayeen nin diin leh min saboolka caawiya iyo nin ka soo horjeeda cunsuriyadda wuxuu dhisay urur la oran jiray People's Temple waxa uu dadka ku yiri bulsho cadaalad ah ayaan dhisaynaa bulsho ay dadka madowga iyo caddaanku isku mid yihiin bulsho aan dulmi ka jirin xilligaas Mareykanka waxaa ka jiray cunsuriyad badan saboolnimo iyo dad rajo la'aan ah markaas Jim Jones waxa uu muuqday badbaadiye laakiin su'aasha cabsida leh waa badbaadiyahaas muxuu dhab ahaantii ahay waa maxayse wajiga dhabta ay dadka aqoon ee u qarsanay ninkan haddii aad rabto inaad fahanto JONESTOWN waa inaad fahantaa hal shay dadka meesha ku dhintay ma aysan ahayn dad waalan waxay ahaayeen hooyooyin arday iyo shaqaale laakiin ninkan waxa uu sameeyay xeelad waxa uu qaaday 3 tallaabo si uu u dago maanka iyo maskaxda dadkan tallaabada koowaad waa jeclaysiin kala goyn iyo cabsi gelin 3daas tallaabo ayuu qaaday ninkan marka hore uu ku jeclaysiinayaa uu ku dhoola cadeynaya wuxuuna ku sheegayaa inaad tahay qof qiimo leh tallaabada xigta kadib wuxuu ku sheegayaa qoyskaagu kuma fahmayaan saaxiibadaada waa dad xun dunida banaanka cadow ayay nagu tahay tallaabada saddexaad oo ah cabsi gelinta wuxuu kugu oranayaa haddii aad baxdo waa lagu dhibaataynayaa haddii aad baxdo waxaad noqonaysaa cadow oo anaga naga mid tirsanid markaas qofku wuxuu ku xirmayaa ururkan si uu u helo badbaado iyo rajo laakiin rajada qofkaas oo raadinaya waxay isku bedeshaa rajo la'aan waliba noqoto silsilad aan wax dhamad ah lahayn markii dawladda Mareykanka iyo warbaahintu bilaabeen inay ka shakiyaan ninkan wuxuu sameeyay go'aan aad u cabsi badan wuxuu dadka oo dhan u raray meel kayn ah wuxuuna ku yiri halkan waa janno halkan cidna nama ogaan karto laakiin halkaas waxay ahayd meel kulul meel cayayaan badan meel dadku ay shaqeeyaan 10 ilaa iyo 12 saacadood maalintii cunto yar hurdo yar waxaana ugu darneed dadkaas halkaas joogay waxay bilaabeen in ay dareemaan in ay xabsi ku jiraan oo markii meeshii ay tageen waxayba arkeen in aysan awoodin in ay meesha ka baxaan oo ay jiraan waardiyo iyo ciidamo ku gaaforeeyay kayntan lagu soo aruuriyay ninkan habeenkii wuxuu sameyn jiray wax la yiraahdo white night dadka ayuu isugu yeeri jiray waxa uu dhihi jiray cadow baa nagu soo socda caawa waa habeenkii aan dhimanahayn waa habeenkii kama dambaysta kadibna dadka waxa uu sii jiray cabitaan asagoo u sheegaya in ay sun ku jirto oo ay cabaan intii si xun loo dili lahay inay dhintaan dadka ayaa cabi jiray iyagoo ooyaya sababtoo ah ma haystaan wax doorasho kale ah oo haddii ay diidaan waxaa jooga niman waardiyaal ama shaqaale badan oo hubaysan oo dadka kor taagan qof walbana uu qasbaya wixii uu ku amray ninka halkan keensaday markii uu ogaado in ay dadku cabaan waxa uu dhihi jiray waa kaftan summa ahayn bal isweydii haddii qof uu ku tababaro in aad isdisho maxaa dhici doona maalinka dhimashada dhabta ay timaado qoysas badan ayaa cadasho ka gudbiyay ninkan waxayna yiraahdeen carruurteennii halkaas tagay dib looma arko noomana soo noqdaan markaas waxaa yimid xildhibaan ka socda Mareykanka waxayna la yimaadeen wariyaal iyo qoysas raadinaya eelkoodii markii ay JONESTOWN yimaadeen Jim Jones waxa uu sameeyay show dad ayaa heesayay dad ayaa sacbinayay laakiin showgaas waxa ku hoos dugnaay arrin kale runtana si walba loo qariyo ma ahan mid qarsoomaysa intii xildhibaanka iyo warbaahintu ay joogeen dadka qaar waxay si qarsoodi ah u dhiibeen warqadaasna waxa ku qorneed help us we want to live
nacaawi waxaan rabnaa inaan baxno. markaas ayuu xildhibaanka ogaaday xaaladda dhabta ah ee halkan ka jirta, wuxuuna ku yidhi qof kasta oo raba inuu baxo waan kaxaynayaa. daawade, halkan waa meesha sheekada ugu cabsida badan. Jim Jones wuxuu ogaaday in kontaroolkii uu dhammaaday, talana ay fariisi ka baxday, wuxuuna qaatay go'aan kaba dambays ah. markii xildhibaanadii iyo wariyaashii iyo dadkii baxsanayaba ay garoonkii tageen, waxa uu ka soo daba diray rag hubaysan. waxay bilaabeen inay risaas ku furaan xildhibaankii iyo dadkii la socdaba. mid ayaana loo toogtay oo hal qof kama badbaadin gebi ahaanba xildhibaanadii iyo wariyaashii. maxaa dadkii baxsanayay halkaas ayaa lagu soo afjaray gebi ahaanba. laakiin dilku ma halkaas ayuu ku istaagay? maya, oo waa uu sii socday dilku. sheekada JONESTOWN markan waa ay ka gudubtay urur, waxayna noqotay dembi caalami ah. Jim Jones wuxuu ogaaday in dawladdu ay imaan doonto dadka, ayuuna isugu yeeray, wuxuuna yidhi dunidu waa ayna necab tahay, waa ayna ciqaabi doonaan haddii ay noo imaadaan, carruurteenna ayay naga qaado doonaan. kadibna waxa uu ku yidhi markaan aan dooranno dhimashada ka hor inta aysan ayaguna dilin. markaas kadib waxaa la keenay weel weyn, waxaana lagu qasay sun, daawooyin iyo cabitaanno macaan. carruurta ayaana la siiyey. qaar baa ooyey, qaar baa diidaya, laakiin wax doorasho ah ma lahan, sababtoo ah rag hubaysan ayaa kor taagnaa. qof walbo isku daydo inay ka soo horjeesta amarkiisana madaxa ayaa laga tooganayay. hooyooyin ayaa arkayay carruurtooda oo dhimanaya. carruurtu waxa ay bilaabeen gariir, qufa iyo neefta oo ku dhito. kadibna waxaa xigtay dhimashada. sidaas ayaana guud ahaan loo siiyey suntii dadka halkaas ku noolaa, yar ilaa iyo weyn, waayeel ilaa iyo min dhexdhexaad ah. cidna looma aaba yeelin, oo gebi ahaanba waxaa la siiyey suntaas weliba si qasab ah. halkaasna waxaa ku geeriyooday 918 qof. haddaba saaxiibayaal, gebi ahaanba mawduucayni maanta halkaas ayaynu ku simi doonaa. fadlan haddii aad nala soo gaartay ilaa iyo halkan, inagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. asalaamu calaykum waraxmatullah.